maarayaha wakaalada horumarinta shirkadaha yaryar ee maamulka magaalada Goday ayaa sheegay in labadii bilood ee la soo dhaafay guulo waaweyn laga soo hooyay waxqabadka shirkadaha yaryar. Maarayaha wakaalada shirkadaha yaryar ee maamulka magaalada Goday Mudane Maxamed Sahal Maxamuud oo ugu warramay warbaahinta xafiiskiisa ayaa sheegay in guulo la taaban karo laga soo hooyay waxqabadka shirkadaha yaryar kadib markii ay ka qayb qaateen arrimaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban isla markaana ay ka qayb qaateen dhimista shaqo la'aanta. labada bilood waxaan oo qosmay hawlo aad u muhiim ah waxa kamid ah hawlahaas tababaro in la siiyo shirkadihii hore u jiray iyo kuwa cusub tababaradaas isugu jiray tababarada istaraatiijiyadda MEC uu leeyahay iyo xidhmaha la doonayo macnaha in ay ka faa'iideystaan shirkadihii hore u jiray iyo kuwa cusub waxa kale oo noo qosmay tababaro iyaguna la xiriira qaybta financiga macnaha inay kaysadaan waxaana dhigtaan bangiga si bari ka maalin ay uga baxaan baahida macnaha shirkadaha ama dadka ay sheeg ka faa'iideysanay barnaamijkan. Maarayaha ayaa waxa intaasi uu ku daray in maamulka magaalada Goday hadda ka hor ay ka jireen iskaashatooyin laakiin iskaashatooyinkaasi hadda loo bedelay shirkadahana loo bedeli doono mustaqbalka warshado taasina ay macnaheedu yahay in maamulka magaalada Goday uu ku socdo tubtii horumarka isla markaana uu ka mid dhalinayo qorshaha 5 sano ee GTB-ga. qaar ka mid ah iskaashatooyinka ka howlgala magaalada Goday oo ku howlana waqti xaadirkaasi howlahooga shaqo ayaa wax ka weydiinay guulaha ay ka heleen ama fursadaha shaqo ay ka heleen iskaashatooyinka muddadii ay ku jireen. shirkadu waxay ka kooban tahay 3 guddi bay ka kooban tahay guddiga howlgalka howlgelinta iyo guddiga dabagalka iyo guddiga iibka saddexdaasan ka kooban marka akoon baan ku leenahay bangiga akoon baan loo furay waxa kulli dawladdu noogu ballan qaaday in mataqaanaa qandaraasyada dharka tulida ay siinayso marka kulli waxaad moodaa hadda noloshii inay wax iska bedelayaan. shirkadu waa Raxmatu iskaashatooyinka yaryar aan dayactirayna iskuulaadka albaabadooda iyo daaqadahooda dabac cusub oo sameynayna iskaashatooyinka yaryar waxa ay maalgelisay dawladda. maamulka magaalada Goday ayaa wada talaabooyin kor loogu qaadayo iskaashatooyinka ka jira magaalada Goday iyagoo siya tababaro iyo qalab si ay uga qayb qaataan horumarka kala duwan ee ka socda magaalada Goday. Iga Axmed Buux, telefishinka caalamiga Soomaaliya, Jigjiga.